waddanka Hindiya magaalada Bombay la yiraahdo saacajiiba ka dhacday bari nin ducaada reer Bombay baa noo sheegay nin Hindus oo gaal oo mushrika oo waddanka Hindiya u dhashay laakiin Australia ku nool ayaa ninkan muslimka ee ganacsadaha xiriir baa ka dhaxeeyo badeecada uu ka iibsan jiray marmar maraakiibtu u saari jiray badeecad baa jiray Hindiya laga helo Australia laga helay badeecadahaas markaa intuu ka soo dalbado ayuu lacagtana banka ugu soo shubi jiray isaguna ama cargo diyaarad u saari jiray ama container marka buu saari jiray ninkii maal qabeenka ahaa ee reer Australia ahaa ee Hindiga gaalka ahaa isagii inantiisii oo jaamiciyada iyo islaantiisii baa Bombay yimid ninkii taajirka ee muslimka ee markaa la kulmeen markaas badeecad buu iibsaday wuxuu yiri badeecadan tan adaan ka iibsaday isoo saar diyaaradda cargo-ga lacagtina waa alaabtana aniga gaar meel kale uga soo iibsaday igu darbukay markaas yiri waayadan qaraxyo iyo adduunka wala cabsoodaa oo qof walba waxa diyaaradda u saaray uu iska eega badeecadan aniga iga soo iibsatay ana ka iibiyo waan garan oo ana u qoolan wixii ka yimaada laakiin tan adaa ilaa yimid maxaa ku jira ii sheeg markaas yiri wax kale kuma jiraan ilaahan caabudaya ku jiro halkan ka iibsaday waa sanad yar oo san dheer oo gacmo badan oo Hindiya ku dhaxsanayaan oo lacag lagu iibiyo oo fara badan markaas yiri culimada inaan soo weydiin in shariicada ay saamaxayso iyo in kale taajir markuu muslim yahay iimaan leeyahay tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa ilaahay macrifadiisa tijaaradiisa wuxuu asaas uga dhigayaa maaragtaan inuu shariicada islaamka ku dhaqmo banaanay maxay shariicadu banaanaysay maxaa sii banaanay uu soo noqday wuxuu yiri waxay culimadaydu igu yiraahdeen ma banaano haddaad u qaadid gaalnimadiisii baad ku caawisay waa khatar mana banaano shariicada islaamka ma ogolo وانا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء ويا بنكي وانت وسنا صاحبا حين ولا معاملون يدي حد يقول قادي ويدي باي ما قاضيو وحكله انيغا وحكله حلال حدا ii keento waan ku saaray diyaaradda laakiin kan ma qaadayo diinteedana ay saamaxayna ku qaado gabadhiisii baa markaa inantii uu dhalay baa fikiraysa waa gabadh jaamiciyada habeenkii iyadii aabaheedii hooyadeed hoteelkii markay degeen ay tageen ayay tidhi aabo ninkan muslimka intaa oo sanada macaamaloonaysa muxuu noogu qaadi waayay bay tidhi ilaahayna aabo waa diintiisa ugulina naga daabo aaba ra'yi baan ka qabaa bay tidhi halkaas ra'yi baan ka leeyahay ra'yigaan ka leeyahay waxa weeyaan bahalkan aan iibsanay kow marka koobaad isagii intuu socdo Australia tagi kari maayo ma socon kara laba lacag iska bixin kari maayo diyaaradda kursi fadhiisan kari maayo saddex adigii waxaad iga dhaadhicisay oo hooyaday ka dhaadhicisay oo adiga ka dhaadhicsanna baahideena kana daboolaya markay dhibaatana qabatay hambarino waxay tiraani arrintaas maskaxdeeda ma galeysay war kale keen لكن مسلم كيف تلفن كيس qabsatay way la hadashay waxay tiri barito inaan ku arkaan doonaya waayo waa inantii odayga caynkaas ee uu dhalay weeyaan maanta ku timid ee aabiheed la socotay balbo markaa ku martay qaaday markay u timiday wuxuu markaa islaamtiisii u soo kaxaystay hijaaban oo gabadh mutadayinada markaas uu soo gashay hoteelkii halka gabadhii fadhiisatay waxay tiri anu adiga kula ballamay ruuxa kale kula fadhida maxay tahay wuxuu yiri ruuxan kale waa xaaskayga diinteeda islaamku ima ogolaanayso inaan adiga kula kaliyoobo limaada waan ku geeyay adiga mahram badita mahram imati mahram badu baahanta نبي محمد بايري لأن الناقة جانب ينوسن لك اليوم إلا محرم كي يقول لك جوغا مويان عليه الصلاة والسلام تعالى أرتبع بكتر ذنب قيدي الدين بان يا مجد تعالي وعيت السؤال بك ويدينا يا دين تاغذيك ومحي وإسلام يا دا نسيت هاي شيء
يا الله بنا مسلم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار عيرك أبو رنوك أبو رنوك هل كيف فرصد وحي ونقطي إنه نكي قبض ودعوة السيئة إنه يدي هل كي كو إسلامته إنه هوتيل كي كو نقط إنه هو يدي أبيه دا كدع عز دين الإسلام كا ولا بدي والده دعوة وين أي كو قنعان إن دين الإسلام صوت الله هداية مركع ويبني مجده جدلا فروح